rag hubeysan oo aan heebtooda la aqoonaya gobolka Zamfara ay dhaca waqooyiga galbeed dalka Nigeria ku afduubtay in ka badan 300 oo gabdhaha iskuuliya sida ay booliiska sheegeen. saraakiisha ammaanka ayaa loo diray magaalada Jangebe halkaas oo subaxnimadii hore ee shalay laga qafaashay gabdhaha. taliska booliiska maxalliga ayaa xaqiijiyay weerarka balse ma aysan bixin faahfaahin intaas dheer. tani ayaa noqonaysa afduub wadareedka ugu dambeeyay ee toddobaadyada la soo dhaafay lagu bartilmaameedsanay ardayda iskuulada. burcada hubeysan ayaa inta badan qafaasha ardayda yaryarka iskuulada si ay madax furasho uga qaataan. ugu yaraan 42 qof oo ku jiraan 27 arday kuwaas oo laga afduubtay magaalada Kangara ee gobolka Niger ayaa weli ku jira gacanta dadkii afduubay. afduubkii sanadka 2014 magaalada Chibok ee waqooyiga bari dalkaas Nigeria ee maleeshiyaadka Islaamiga ee Boko Haram ku qafaasheen gabdho iskuuley ah oo gaaraya 276 ayaa soo jiitay indhaha caalamka kaasoo afo lagu bartilmaameedsay iskuulada Nigeria. weerarka Jimcaha ayaa dhacay kooyadii waqti saqdaxa ah markii koox dabli ah yimaadeen dugsiga sare ee gabdhaha ee magaalada Jangebe iyadoo watay gawaari iyo mootooyin sida mid ka mid ah macallimiinta iskuulka wax ka dhiga uu sheegay wargeyska Panja. warbixinta ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah burcada ay ku labisnaayeen dharka ciidamada ammaanka dowladda iyadoo intaas lagu daray in gabdhaha ay si qasab ah ku saareen gawaarida. laakiin goobjoogayaal ayaa u sheegay in ragga hubeysan ay ku yimaadeen iskuulka. war qoraal ah oo ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in saraakiisha iyo cutubyo ka tirsan militariga la geeyay magaalada Jangebe si ay u raadiyaan 317 gabdhood oo la afduubtay. hay'adda qaramada midoobay qaabilsan carruurta UNICEF ayaa sheegtay in ka carotay kana xumaatay afduub kale oo baaxad leh oo lala geystay ardayda wax ka barata dalka Nigeria taasoo ay ku tilmaamtay mid wax xushmo oo ay ku tumashada xuquuqda ardayda ama carruurta. kooxaha hubeysan ee ka howlgala Zamfara ayaa inta badan afduub oo kaliya halkaas si ay u helaan madax furasho, laakiin markii rag hubeysan oo ka badan 300 oo wiilal ah ay ka xiseen Kankara oo daris la gobolka Katsina bishii December ee sanadkii hore ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in kooxda Boko Haram ay ka howlgashay waqooyiga bari ay ka dambeeyeen weerarka. Mukhtaar Macallim, warbaahinta Kulmiye.